doonaya inaan ka hadlo arrinta ku saabsan dadkan Soomaaliyeed ee Soomaaliya ay ka hadlayaan ee ku saabsan cabdikariin qalbi dhagax ninka loo yaqaano. qalbi dhagax waa nin deegaankan u dhashay ahna qof booliska ugu horeeyay halkan ka ahayo ka caasiyoobay wey. haddii uu ka caasiyoobayna waxa uu baabi'iyey ee laayay ee dhameeyey ee dhibaatada u geystay waa shacabkiisa. wax Soomaaliya ka quseeyana ma jirto, asaga asalkiisina xaggan uga soo jeeday. waxa uu dilay ee laayay ee dhibaatada u geystana waa shacabkiisa wey, gaar ahaan marka la sii fiiriyo weliba qoyskii uu ka dhashay iyo deegaankii uu ka dhashay iyo Reer dadkii deganaa unbuu laayay, cid kale ma laynin. Soomaaliyana waxba kama quseeyaan. fikirka kale waxa weeye anagu Soomaali weyn ma nihin. Soomaaliya dad walaalo darisaan nahay, laba dawladood daris anagoo Itoobiyana la yiraahdaa. Itoobiyaan nahay, dadka Soomaaliyada walaalaha anaga waxaan leenahay haddaad wax taraysaan dhibaato inta idinku filan adinkay la joogaan al-shabaab iska celiya oo dalkiina ka buuxdaa. dalkiina 30 dawladood baa mushaar ku qaadataa isagoo dadkiina gaajoonaya. haddaad wax taraysaan dalkiina wax u tara oo adinku dalkiina coraysta oo al-shabaabta iyo cadowga kale iska kiciya oo ayadoo ciyaalkiina iyo dadkiina iyo maatadiina ay gaajaysan tahay 30 dawladood yaa mushaar ku qaata, askartiina mushaar ma qaadato. marka qofka asagii waxaa la yiraahdaa qofka waxa weeye asaga tiisi uu meel saari waaye inuu mid kale ka hadlo waa khalad weeye. annagu waan ixtiraamaynaa waana tixgelinaynaa dadka Soomaaliyeed inay xorriyadoodii iyo walaalnimadoodii iyo wanaagooda helaan. waan jecelahay ma nicbin, laakiin annagu Itoobiyaan nahay, Soomaaliya ma nihin. qodobka kale ee doonayo waxa weeye inaan ka hadlo waxa weeye dadka Kenya ku nool ee Soomaaliyeed waxaysan haysanin annaga haysana. dalka iyagu waxa weeye xorriyadiisii iyo madax bannaanadiisii iyo horumarkiisii cid haysata ma jirto, annaga haysana. ninka la yiraahdo Sakariye ee baarlamaanka ku jira ee mar walba ka hadla qadiyadda Itoobiya iyo deegaanka Soomaalida ka dhaxbixila inuu shabaab yahay waa la ogyahay. shalaytana al-tariyu joogi jiray waa la yaqaanaa. waa Sakariye, waa shabaab asaga laftiisa markuu qofku saxan yahay inuu qadiyad kale ka hadli karaa. inuu qadiyadda Itoobiya iyo dawladda deegaanka Soomaalida iyo qalbi dhagax oo u dhashay deegaankan wuxuu doona ha ahaado inuu ka dhaxbixi waayo, taa waa shabaabnimo loogu soo dhuuman maayo. waan ognahay inuu shabaab yahay, ama baarlamaan ha ahaado ama ha wato mataqaanaa ee sadana dawladeed ha sheegto. Sakariye hadduu wax tarayo reerkiisa iyo deegaankiisa al-shabaabta ha ka xoreeyo, waana shabaab. hadduu dayn waayo Itoobiya qadiyadeedana edab daran yahay.